نستعين على أمر الدين والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. shirgudoonka iyo xubnaha baarlamaanka iyo bahda saxaafadda iyo marti sharafta kalaba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. aad iyo aad baan ugu mahadsantahay inaad hor imaada inay ogolaateen insha Allah bankiga oo uu eegmaday madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Silaanyo inaan agtin u noqdo wakiil uga noqdo waxaan jeclahay inaan idin soo gudbiyo wixii aan banka ku tari lahaa hortiinana aan ka sheego waxa ogtihiin bankigu Soomaaliland ilaa 19 uu shaqeynay waa hay'adda establishedka ay runtii ay kaliya moodeen wixii ay u dhan yihiin heer caalami ah uu shaqeeyaa waxa kaliya ka dhiman waa inta itraafka Soomaaliland ka dhiman ayuun baa ka dhiman marka banku intiisa badan waa uu dhameystiran yahay waxa ka maqan waa xiriirka caalamiga oo kaliya itraaf dibadda insha Allah taas weyn heli doonaa si Soomaaliland u sugayso ay u sugayaan Soomaaliland itraafka qura u maqan waxa weeye banka la itraafo Soomaaliland waa la itraaf marka waxa weeye in bankiga inuu hawlgalo sidii runtii uu u heli lahaa itraaf taana waxa ka banku inuu horta helo capital iska leeyso oo ku hawlgalo taas waxaan jeclahay inaan u sacayno sidoo banku u heli lahaa oo waxyaalaha ka dhiman ay tahay in bank capital uu ku hawlgalo oo ballaaran inuu helo taana waa runtii waa qodobada koowaad ee banku inuu raadiyo ay tahay aan ka hawlgalayo talabaad waxa weeye boardkii on isaguna aan imaka si u dhisnayn complete si dhan aan u dhisnayn oo xubnihiisa ay kala maqan yihiin dhawaanna aan isla qaadanay xukuumadda in degdeg loo dhiso boardkii haddii boardka la dhiso wax badan ayaa markaa u qabsoomaya oo banka gudihiisa taasna waa taan ka hawlgalayno waayo fulinta oo kaliya kuma filla wuxuu u baahan yahay mustambeed xoog leh marka sidaa darteed banka in loo helo weeye boardkiisi oo hawlgalo taas waa waxyaalaha ka hawlgalay ay ka mid tahay si aanay hawsha aan ugu noqon anagoo kaliya fulinteeda ta kale waxa weeye banku wuxuu leeyahay kaadir fara badan oo saraakiil leh oo karaaniin leh oo leh gargaarayaal leh sidaa darteed saraakiishii oo dhan iyo karaaninta intii aqoonta lahayd oo dhan waxaan gelinay workshop bay ku jiraan ay u fakarayaan banka inuu sidoo waxyaalaha ka dhiman oo dhan ay balaan ugu sameyn lahaayeen aan dibatana anagoo la kaashanayna aqoon-yahano kale oo dibadda ah oo reer Soomaaliland inaan markaa aan soo saarno balaankii banku uu ku shaqeyn lahaa mid dhow iyo mid dheerba ta kale waxa weeye bankiga private-da ka furan imaka dalkeena waxaan u hawlgalaynaa iyaguna laba xaaladood oo ah in ay barkow in shilinka Soomaaliland ku shaqeeyaan laba in ay wada shaqeeyaan iyaguna taasna waa iyaduna meesha noo taala waxa kale oo jira iyadana wixii shuruuca ee nooga kin qabiyaana in aad noo fulisaan iyagana shuruucdaasna aad sidii ugu dhaqsiyaha badan leh way waxyaalo badan bay naga xanibeen kuwana waxaan ka codsanayaa iyagana inaad wixii xeerara ee naga yaala golaha in iyagana aad noogu soo gudbisaan waayo shaqooyin fara badan baa nooga taala oo iyaguna inaan wax qabano ay ka mid tahay sida xawaaladaha oo kale bangiyada oo kale iyo wixii kale ee lamid ah iyo money laundering oo kale faantiisa marka waxyaalahaas oo dhan waxa weeye wax shaqooyinkayga ku xidhan sida darteed waxaan marka doonaynaa inaanu banku maadaama itraaf ahaan xiriirka dibadda ee bunuugta dibadaha waan la xiriirnaa iyagana qaar badan baan la xiriirnay xiriir fiican oo waan qaarkood oo la yeelnaa qaarna waa inoo imanayaan qaarna correspondence caadi ah ayaan ku wada si ay u iman lahaayeen dalka waayo imka waxaan ugu soo horeeyaa aan doonaynaa in bankiga Saba inuu isagu yimaado bunuug kale oo fara badanna ay timaado oo Dubai baa ka mid ah waxyaalahaas oo dhan waxaan doonaynaa inaan hawlgallo sidii ay uga noqon lahaayeen waana hawsha qura ee noo taalaan doonaynaa ay ka mid tahay hawlahan oo yahay waxyaalahaas aan ku soo gabagabeyn lahaa insha Allah aad iyo aad waa mahadsantihiin dhageysiga